آله وصحبه أجمعين وبعد ولا لا مسلمين وحن إن شاء الله بإذن الله تعالى أنو شيء يا ولا ريال إن أي صائف بحضي أما مدة تنبل هذا الهيئ علامات كم إذا علامته والنبي إنه شيء صلى الله عليه وسلم وهاد صبيحتان كدجال العور ولا سعتان دجال العور حديث فربضن أي النبي صلى الله عليه وسلم كجور من قصدي سا هسه هاته وحامانته سعد الله أركي أو العضي أو سعدان الله أركي متكم إذا علامته والنبي إنه شيء صلوات الله وسلام عليه نبي وحي مركي آخر الزمن كلا جاره waxa soo bixi doona ninkaas oo il cawaran isla markaana sheegan doona inuu yahay ilaah ninkaasi ummadu fasaadin doona dad badan baa raaci doona dad badan buu leen doona wax badan buu kharibi doona laakiin waa ka mamnuuc in uu galo Makka iyo Madiina ilaahay ayaa Makka iyo Madiina markasta difaacda isla markaana markii uu meel kasta soo kharibay ayuu wuxuu isku dayayaa buu nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu galo magaalada Madiina markuu dabcan inuu galo ayuu wuxuu la kulmayaa dajaal cawar iyo qoomkii markaa la socday magaalada ciidamo far badan ay ku geedaaman yihiin isla markaana uu san gali karin markay dhacdo taasi walaalayaal wuxuu fuulayaa buur ka mid ah buuraha magaalada Kooneeda ku yaal wuxuuna ku oran doonaa qoomkiisa baa la yiri markuu magaalada gali kara waayo ayuu wuxuu ka tusayaa qoomkiisii meel fog oo buur dusheeda ayuu wuxuu oran doonaa dajaal cawar mawjeedaan qasriga mawjeedaan cad meesha ku yaala markaas oran doonaan ha markaas oran doonaa waa masjidkii waxa weeye maxamed weeye masjidka nabiga sallallahu alayhi wasallamna waxa uu nabigu inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam inuu aakhir zamanka noqon doono qasri laakiin xilligii nabiga uu ahaa dhoobo iyo sanadadii ka dambeysay intaasoo qarni oo ka dambeysay wuxuu ahaa dhoobo ahaa maanta marka waxa weeye calaamadii nabigu sheegay dajaal cawar qoomkiisana uu tusi doono oo ah qasri cad in ay noqon doonto waxa weeye masjidka nabigu maanta qasri cad buu noqday saad u jeedaan dhalada uga jeedaan waxa weeye calaamadaasina waa calaamada ugu horeysa ama waxa cad ee maanta cadaanka ee muuqaalka dhabta ah la og yahay waxa weeye nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam xadiiska uu ku sheegay 1400 sano intaas ka hor ayaa maanta cadaatay marka walaalayaal waxaan idinka codsanayaa in aad xifdidaan 10 aayadood ee ugu horeysa suuratul kahfi qofkii xifdiyo 10 aayadood ee ugu horeysa suuratul kahfi ma la kulmayo dajaal cawar sharkiisana waa uu ka magan geliyaa ilaahayna waxa weeye isaga iyo dajaal cawar waa uu kala magan gelinaya marka 10 aayadood ugu horeysa suuratul kahfi xifdiya qof kasto 10 aayadood xifdiya ilaahay sharkiisa waa uu ka magan gelinaya una si sheer galay walaalihiin walaalayaal fiidiyowgan qof kasto fiidiyowgan ummadda muslimiinta iyo walaalahood gaarsiyana ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga bariyaa inuu sharka dajaal cawar iyo fidmadiisa ilaahay ka magan geliyo inaga idinka ilaahayna ka magan geliyo ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weeye qof kasto muslim oo khayrka si sheer galayna ilaahay waxaan uga barnaa subhanahu wa ta'ala inuu isagana ubadkiisa iyo maalkiisa iyo naftiisa ehelkiisaba uu ka badbaadiyo sharka dajaal cawar waa wax muhiim ah in la isku baraarujiyo calaamadaas oo calaamad maanta muuqata ah oo loo wada jeedo waxa weeye waxay cadeynaysaa soo bixitaankii dajaal cawar in ay soo dhawaatay taana waxaanu kaga badbaadi karnaa sida nabigu inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam in aynu xifdino 10 aayadood ugu horeysa suuratul kahf marka saasa inoo ballan insha Allah sina sheer gareeya waaniga walaalkiin Shamsuddin Makaawi salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh